السلام عليكم ورحمة الله. كسو دوادا أصحابتا وربحين كسابسن نولشا سوماليدا كنول مقالة فوث ماكميري قبل كالبيرا دالك كندا. ديارينتا وعد افتاح من علمي واللبدا بيشا أفراد لبدا كون يلاباتني شنتا وحل الصبح نما ساعدنا أي تاي سيديدي يو بركة AM waxaa aniga iyo saaxiibkay Samatar ka safrayna magaalada Edmonton anagoo u jihaysanayna magaalada Fort McMurray oo naga jirto dhanka waqooyi bari waxa ay magaalada noo jirtaa 430 kilomitir safarkeenana wuxuu qaadanayaa insha Allah 5 saac ilaa 6 saac ilaahay waana nabad keenay magaalada Fort McMurray meel aan aad uga dheereen aniga iyo Samatar waxaan ka shaqaynaynay muddo sanad ah hadayna ka badnayn marka magaalada Fort McMurray waxay noo ahayd marin aan markasta oo shaqada u socono sii marno markasta oo ka soo laabnana aan soo marno Fort McMurray waxa la helay 1870 waxa magaalo loo aqoonsaday December 29 1948 dadka ku nool tirakoobka ugu dambeeyay ee laga sameeyay wuxuu ahaa 2021 waxaa lagu qiyaasay 68,000 oo qof magaalada Fort McMurray waxa ku wareegsan dhammaan warshadaha shidaalka ee dalka kuwooda ugu wax soo saarka badan waxaana lagu qiimeeyaa oo qiimeyn gaar ah u yeelay magaalada Fort McMurray warshadaha shidaalka oo ay u tahay magaalada Fort McMurray dadkeeda waxay ku faanaan oo hal dhag u ah we have the energy oo ah waxaan haysanaa shidaalkii inta waa sawir guud oo aan ka siinayo magaalada Fort McMurray marka loo yimaado Soomaalida magaalada Fort McMurray ku nool waxa lagu qiyaasaa 2500 ilaa 3000 oo qoys iyo qofba markaan u tiriyo macal caruurtooda dhamaan aan isku tiriyo laakiin taasi xoogaho waxaan ku dariyaa buunbuunin oo dadka inta aan wareysanayo waxay ilaahayeen inta ma gaarayaan dadka laakiin waxaan ugu daray dad badan oo hadda aad u imaanaya magaalada darteed si ay oga helaan nolol si ay oga helaan shaqo si guud dalka Canada xilliga la joogo waxa uu ku jira xilliga ugu adkaa ee dalka Canada intii uu ka hana qaaday horumarka casriga ah oo ay warshadahan iyo shidaalkan iyo noloshan ay heleen waxa jirta shaqo la'aan baahsan nolosha guryaha aad bay qaali u tahay guud ahaan nolosha qoodka waxa la cuno sidoo kale aad bay qaali u tahay way adag tahay wadankan qof shaqo la'aan ah in uu bil ama 2 ama 3 ama 4 bilood oo isxigto oo qofka shaqo la'aan ahaado oo nolosha ku adkaanayso ma tahli karo nolosha aan u soo laabto magaalada Fort McMurray Soomaalida waageedii hore waxay oola baxeen magaaladii lacagta sida la mid ah Allah u naxariistay riwaayadii uu lahaa Abwaan Sangub jannadii Allah ka waraabiye waagi uu sameeyay riwaayadii qabrigii jacaylka waxa laga dhigay in badan tiyaatarkii Muqdisho oo xilliga bariismaadka iyo nolosha aan haysanay anaga hadaan nahay Soomaaliya marka Soomaalida waxay u bixiyeen qabrigii lacagta macnaheedu waxa laga soo xareeyay ayaa aad u badnaa tii maanta ma joognay midda hadda haysato kirada guryaha Fort McMurray hadii aan ku sheego townhouse oo loo yaqaan guryaha singlada ama qoysaska ee degan waa 2,500 ilaa 3,000 kiradooda apartmentiyada oo ah mid ay dadka isla degan dhalinyarada ahna waa $1,200 ilaa $1,500 Soomaalida waxay leeyihiin magaalada ay ku leeyihiin Fort McMurray hal maqaayad waxa lagu tukadaa 2 masaajid labada masaajid midna Soomaalida ma maamulaan ma garan karo in ay jirto meel yar oo mawlacyo ay Soomaalida leeyihiin laakiin anigu ma arag intaan ku guda jiray warbixintan waxaan wareystay dad aad u badan oo kala duwan dhamaantood waxa ay ka sinaayeen oo isku raaceen shaqo la'aanta baahsan waxaan la kulmay qof 2 sano shaqo la'aan ahaa qiyaas qof dadkiisa u soo baxay oo 2 sano shaqo la'aan wadankan joogay oo wax laga sugayay mid sanad shaqo la'aan ahaa baan la kulmay kuwa bilooyin shaqo la'aan oo la kulmay Soomaalida waxay isugu jiraan kuwa xirfad ku shaqeeya iyo kuwa xoogsata ah waxa badan dadka xoogsiga shaqada ku raadinayo sababtan waxay tahay Soomaali ahaan hadaan nahay anagu xirfadu in ugu yar tahay waagan dalkeena joognana xirfad maana yeelan aqoonti kalena cid lahaba ma jirto oo aad bay ugu yar tahay saaxiibkay Samatar wuxuu ugu yiri Canada qofkii joogay 20 sano iyo qofka maanta yimid way sameeyeen cid iftaaxo baahida dhaqaale iyo shaqo raadinta waa loo siman yahay waxaan gunaanad ooga dhigaya warbixintaydan
kooban oo aan ku eegayay xaaladda magaalada Fort McMurray in aynu dadaalno Soomaali haddii aynu nahay, in aan xirfad yeelano, in aan aqoonteena kaleeto sare u qaadno, in aan marnaba ka niyad jabin hankeena iyo hiigsigeena iyo himiladeena. insha Allah waa la guuleysan doonaa. waxaan in leeyahay dhammaantiin guul Soomaaliyeed. gaar ahaan waxaan leeyahay gabdhaha iyo wiilasha u guntaday in ay wajahaan qurbaha kana libin keenaan waxa hor yeelo guuleysta oo haniyad jabina. waa mahadsantihiin. intaa ayaan ku gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee aan ka diyaariyey magaalada Fort McMurray gobolka Alberta.